وزير مارية. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو waxaan ku faraxsanahay inaad madaxweyne nagala soo qayb gasho kulankan qiimaha badan sidoo kale runtii waxaan amaanayaa hoggaanka ra'iisul wasaaraha iyo in dawladdu leedahay qorshe iyo tub hawlaha qaranka lagu fuliyo aad u qiimo badan annagu kulli aniga wasaaraddeedu waxay ku jirtaa tubta dhaqaalaha wax fiicanna waa qabanay wax fiicanna waa wadnaa waa noo qorshaysan yihiin waxaan kaliya oo mudane madaxweyne iyo ra'iisul wasaare xigeenka soo jeedinayaa in tub kale lagu daro oo ah tubta wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland iyo in dalkan midnimadiisa uu qorshe dawladdaani ay kala haato kuma arkin tubta siyaasadda loo dhan yahay wax ka hadlaya Somaliland iyo dalka midnimadiisa iyo in dawladdu qorshe ka yeelato dadka Somaliland jooga iyagoo nabad haysta ayay 30 sano ku dhawaad u dulman yihiin oo u dhibaataysan yihiin dawladdan inay soo gaadho oo wax tarto oo sida hadda marka ku soo aragtay waxbarasho hela oo shaqo hela marka in dawladdu qorshe kala haato oo halkaas lagu daro wax ka muhiimsan ma jiro saddex arrimood ayaa tixgelinta isha lagu hayaabaa la yiri tubtaas oo ah dhamaystirka federaalka dhamaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxaan aaminsanahay saddexduba ma soconayaan haddaan Somaliland qorshaheeda lagu darin haddii midnimada dalka laga fikirayo marka taas aan soo jeedinayaa excellency iyo madaxweyne in arrintaas hadda waxa dalku soo gaaray anigu muddo badan baan halkaan joogay oo wasiirka ahaa marba duruuf baa lagu jiray duruufo waxa lagu jiray halkaan dhiig joojin laga wado oo amni lagu mashquulsan yahay oo dhismo hay'ado dawladeed oo sida maanta oo kale soo gaara lagu mashquulsan yahay laakiin maanta waa maalintii midnimada laga hadli lahaa waa mahadsantahay madaxweyne